tani wixii ka dambeeyay markii ciidamada dawladda Soomaaliya iyo dawladda Kenya ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Kismaayo inta badan gobolada Jubbooyinka iyo Gedo ayaa waxa soo badanay kulamo looga arinsanayay maamul sameynta goboladaasi. magaalada Nairobi ayaa waxay ka mid tahay meelaha ay ku nool yihiin kumanaan Soomaali ah ka soo jeeda gobolada Jubbooyinka iyo Gedo. munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay laguna dhiirigelinayay taageerada taakulen maamul sameynta gobolada Jubbooyinka iyo Gedo ayaa waxa soo qaban qaabay haweenka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda goboladaasi. ka qaybgalayaasha munaasabada oo isku jira qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ku dheeraaday sida ay muhiim u tahay in aan la kala jarin gobolada Jubbooyinka iyo Gedo. isla markaasna waxay baaq u direen madaxda ugu sarsareysa dawladda federaalka Soomaaliya iyagoo ka codsaday in la dhowro dastuurka dalka u yaala. waa kuwan qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha munaasabada oo hadalka jeediyay. waxa halkan la isku yimaaday munaasabadu ay tahay waxa weeye taageerada loo hayo ummadda Soomaaliyeed ee goboladaas saddexda gobol degan ay u hayaan dhismaha maamul goboleedka aanu doonayno inaan dhisno waa mid waafaqsan qaynuunka Soomaaliya. waxaan maqlaynaa maamulku meel gaar ah oo 4 bilood la soo sameeynaya maamul 4 bilood annaga aan fadhinayno oo nala soo sameeynaya ma jirto waayo madaxweynaha inuu maamul dhiso meelna kaga ma qorno dastuurka inuu maamul asaga soo magacaabo meelna kaga ma qorno dastuurka qodobka 113 ee dastuurka firqadiisa koowaad wuxuu dhigayaa haykalka dawladda dhismaheeda waxa awood u leh golaha fulinta oo uu ra'iisul wasaaraha ka koob yahay. haddaanu 3 gobol nahay dawlad baan rabnaa qabiil lama ahin hadda uu marinaysa dadka 3 gobol inay qabiil yihiin waa Soomaaliya oo dhan hal qabiil oo ka maqan oo aan gobol 3 gobol degan ma jiro. ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay ku soo dhawaada 3 gobol waxay deeqaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan markii 3 meelood loo dhigo 2 meelood way deeqaan way ku filan yihiin.